waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waana qaybtii labaad sheekadii qiiqii ceelcad la baxay. dhegaystayaal, qaybtii hore ee sheekadan haddaan idin xusuusiyo, jaamac gaab wuxuu ahaa 65 jir 2 jeer oo hore soo guursaday. carruur iyo xoolaba nin laga badiyey ayuu ahaa. waa dambe isaga oo markaa xagga 70 u tallaabsanaya ayuu doonay inuu mar saddexaad guursado. kolkaas buu aabbaheed ka doonay awrala axmed maxamuud oo geyigii uu degi jiray gabdhihii ugu toolmoonaa ka sii tilmaanayd. laguma dhibina si degdega ayaa loo siiyey markuu oggolaaday inuu ka bixiyo yaradkii baryaha hablaha laga bixin jiray kii ugu badnaa. isla markiibana waatay labadii oday ku heshiiyeen guga dambe inay xilaha iyo xarragada isdhaafsadaanoo gabadhu ay xagga jaamac u wareegto. qorshahaas iyadu waxba kama ogeyn, hidda ahaanna loomaba baahnayn. aabbaheed oo keliya ayaa gar u lahaa inuu aayaheeda ka taliyo oo weliba go'aamiyo. ha yeeshee markii taladaa loo sheegay, cawlari way ku gacan sayrtay. iyada iyo aabbaheedna way isku afdhaafeen, taasoo gacanqaad iyo habaarba ay odaga kaga mudatay. maalintaas buu axmed maxamuud ku tashaday diidmadeeda inaanu waxba ka soo qaadine kolkuu jaamac yaradka u keena uu ku meheriyo oo weliba si qasab ah ugu gurigeeyo. wuxuu isku qanciyey, oo haddaan sidaas yeelo cid baan wax u dhibay. gabadhi weligeedba oday la siiyey way diidi jirtay, waana lagu qasbi jiray. marka dambena intay ku nagaato way mahadin jirtay. maxay cawlari hablaha kale kaga duwan tahay? waa waxba, ayuu isugu jawaabay. gugii baa curtay. cawlala oo ooridiisa ah gugii uu jaamac la wareegi lahaa. meel walbase kama culanna wuxuu ku hormaray si wacanna ugu dul gabdhamay xidhiir dhudub dhulka iyo ballida lagu magacaabo. waa carshin iyo balli xidhiirsan isu dhowdhow oo jiiraalka markay tahay ceelka dhudub looga arooro. waa dhul dhibicda horeba ay xooluhu inta ku cayiraan ku darari jireen, degdegna ugu tarmi jireen. qoladii muddo ku nagaataaba way ku bulaali jirtay. dhasha ayaa si la yaable ugu kori jirtay. marar badanna waxaa lagu arki jiray rag iyaga oo weli wada ciidan ah, haddana 4 fac oo isdhalay isku soo gaaray. waxay odayadu odhan jireen, lama sheegin qolo intay degtay aan ku buraalin, dabadeedna aan ku jabin, markuu inta kibir taabto ay gardaraysiga dadka kale bannaysato. taana waxaad ka garan kartaa abwaan soomaaliyeed oraah uu ku soo koobay mar taariikhda geyigaa wax laga weydiiyey. wuxuu yidhi, xidhiir dhudub marka hore koris, marka xiga kibris, marka xigana kufis. ballida magacaas leh waxaa ka mid a qaafo qaris, galdhuumood, shirdheere, xarraga mooge iyo saduudle oo daraawiish ay jeer degtay. madaxaygase midka ugu caansan ee suugaantii qarnigii 19aad iyo kii 20aadba laga helayaa waa Labageed. balligii jirkii Soomaaliyeed intuu lo'diisa u heesay uu ku oran jiray, buurta buur dhudub, banka Labageed oo butada badan, wiil barbaariyo biciid kula miro. gabyaagii la oran jiray Xuseen Cali Jiisna waa balligii uu gabayadiisa midkood ku xusay markuu lahaa, sida gorayga Labageed fadhiya giidu waa ani. sidaan soo xusay, roobkii gugu xidhiir dhudub buu ku soo hormaray. ballidaa caadaasa haddiiba naqi iyo cawskibaa meel laga mara la waayey. markaas baa cidhifyada waqooyi ee mudug looga soo hayaamay. ciid baa looga soo guuray. beelo ka yimid ceelcad baa shafka soo dhigay. reerkii ay cawlari ka dhalatay iyo kii jaamac gaabna iyaga oo aan ku ballamin ayay agagaarka ballidaas midba dhinac ka soo degay. sideedana sabanka barwaaqada iyo ladnaantu waa marka ay dhallinyaradu isu hawooto ee inan waliba inantii uu guursan lahaa doorashadeeda uu kanshaha u helo. waa xilliga ay ku kulmaan ballida agahooda, goobaha cayaaraha iyo casaradii markay tahay xoolaha dhexdooda. habeenkii dambe meel degmada ka yara baxsan barbaar ku ballansanayd dhaantaha ku qabsato, oo waa siday rabeene gashaantimihii awalba loo dan lahaa goobtii ha soo buuxiyeen. habeenkaas iyo habeenadii xigayba cayaar wanaaggeeda iyo murtideeda gabadhii la wada jeclaaday cawlala axmed bay ahayd. markaas buu inan waliba ku dadaalay intuu qalbiga ka xado inay isaga ooridiisa noqoto. gabadhise siday ku mahmaahi jireen, kunna waa koodisaa, kowna waa kala baxdaaye. waxay markii dambe u go'day nin warsamo la oran jiray. kaas bay is-oggolaadeen. kadibna labadoodii midna mar dambe goobihii dhaantada laguma arag. waxay sheekaystaanba guuriya inuu la baxo ayay ku heshiiyeen. ha yeeshee labada mid waliba wuxuu kan kale ka qariyey waxay ahayd inuu ka ogaado. cawlali uma ay sheegin inay doonan tahayoo jaamac gaab la siiyey. warsamana iyada sheekadii uguma darin jeer hore inuu soo guursaday, 3 carruura inuu dhalay, 3dii iyo hooyadoodna ay dayr afraad duuma ka dishay.
yeelkeeda isaga oo qabanqaabadii la bixidda weli ku jira ayaa qorshahoodii laga war helay. Cawrale aabbaheed iyo walaalaheedba way ogaadeen. kolkaas bay ku tashadeen habeen iyo maalinba in gabadha indhaha lagu hayo tan iyo inta ninkii la siiyey lagu wareejinayo. habeenkii dambe iyada oo inta xoolihii la maaray ay saqdhexa ku dhowdahay ayaa Warsamo oo isqarinaya wuxuu fooda ku soo qabtay geed yar oo aqalka ay Cawrale ku jirto aan ka fogeyn. waxaa qalqalka ugu jira qori uustargaaba. gabadhana wuxuu u wadaa mara marsiinaa iyo kaba cusuboo ay ku raacdo. waa halkay ku ballameen iyada ayuu meesha ku sugayaa oo koldhow ugu iman doonta. markayse inta aqalkii ka soo baxday ay u dhowdahay inay la soo joogsato welise aysan soo gaarin ayay ku naxday 3 ninoo laba ay la walaal tahay midna uu in adeerkeed yahay meel ay ka soo fuureenna ay garan weyday. laba ayaa Warsamo garbaduub u qabatayoo qorigii inta kala wareegtay baadkiisiina madaxa jilbaha iyo dhabarkaba kaga garaacday. kii saddexaadna iyadiibuu inta dharbaaxa iyo haraati u dedejiyey xagga aqalkii hooyadeed u tuquntay. Warsamo oo dhaawacan qorigii laga xoogay Cawrale iyo guurkeediina quus ka taagan ayaa aroor hore reerahoodii ka duldhacay. toddobaad kadib nabaradii gaaray markuu ka roonaaday ayuu bilaabay tol beeray iyo inuu ku hamiyo nimankii dhibka u geystay inuu ka aarsado. waxaa u bannaanayd erge isaga u qareena inuu abaabulo erge reeraha qorigiisii haya uga soo celisa wixii kaloo uu u sheeganayana kala soo xaajoota. ha yeeshee odayadii jifada u ahaa ee sidaa kula teliyey wuu ku diiday. arrin kale oo shaydaan u qurxiyey ayuu tala mooday. isaga iyo laba kale ayaa isku dhaarsaday nimanka godobtooda haya inaanay qori iyo qaantoona ka doonanine ay qambarac ku dhigaan. inaan Cawrale cid kale lagula xididin geel laga keenay oo yarad ahna aanu aabbaheed weligiiba haaneedin. maxay haddaba yeeleen? intay dhaqaaqeen bay gabadhii oo ballida midkood dhar ku khasaaranaysa ul ku bilaabeen. dabadeedna xoog kula tageen. markay geelashii dhex geeyeenna siday doonaan bay ka yeeleen. waa kufsadeen oo mid keliya uma ay dayne way ku moogaysteen. dhowr maalmood kadib markay caana diideenna iyadii oo aan gabar ahayn baroortiina ka dhammaatay ayay reerkoodii u soo luuday. meelay ku dhibcday waxa la ishaybiyaba sidii loo joogay bay agagaarka aqalka hooyadeed ka muuqatay. maxaase xigay hoog iyo ba madaxyo koldhow qoyanaa oo qalalay xaraga moogay maygaag iyo goobo kale oo lagu baaba'ay. 44 barbaaro iilka loo walwaalay. 23 dhinaca iyo 21 dhinacii kale ah. jaamac gaabkii ay Cawrale u doonayna markuu waxa dhacay maqlay ayuu inta dib u gotay geeliisii ceshaday. cid kalena ma ay guursane sidaas bay ku gabowday. colaadaas halkii ka qayb galay waxaa Allah u naxariistay ka mid ahaa gabyaa Xaaji Axmed Fiqi la oran jirayoo reer Galinsoor ahaa ilka dahabna ku magac dheeraa. dhowr iyo 10 gu haddii dagaalada laga joogo ayaa gaban uu adeer u ahaa ay dhalinyaro kale isaga oo gamacsan waxay ka xadeen qori iyo shakad rasaasa oo uu lahaa. maantaa kadib in badan ayuu gabyaagu qorigaa ka ergeeyey. ha yeeshee reerihii uu ku sheeganayay wax garowshiyo ah kama u helin. alla ilaahay waani dhacantay goortuu is yidhi ayuu tiriyey gabay goodi ah oo raggii qoriga ka hayay uu ku xusuusinayo gardarooyinkii geyga soo maray iyo goobihii bacnaa ee ay soo jeedeen. sheekadan qiiqii cadcad la baxday isaga oo aan halmaamin ayuu yidhi waa wixii qabaalkii jabiyo qoladii waagiiye waa wuxuu fidaar ugu qorgo'ay qarabka kiisaahe waxaa ceelcad qiiqu uga karay qaawin gabareed walee ama qumaataa jirow qorigii laysiiye ama qaylo iyo waawaray qooman ku abaade oo laba qabiiloo isjecel qaraxdii baaruudug. aan haddaba soo guraanadee waa iyadan ka hor dhaqanka Soomaalida kufsiga laguma aqoon. markii tukacad la arko ayaa la maqli jiray meel hebla gabar baa nin ku kufsaday. fal loo dulqaato ma ahaan jirin. ninkii ku kacaa kuma badbaadi jirin. hadduu ku badbaadana wax takooran baa bulshada dhexdeeda looga yaqiin. gabar reerood in la siiyaana aad bay u adkaan jirtay. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.